Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta qaaliga. Halkan waa channelkeenu Fana Technology iyo anigu Cabdullaahi Daacada. Asxaabta maanta waxaynu wada cashir muhiim ah kaasoo ku saabsan dhowr farsamooyin oo aad ku isticmaali karto WhatsApp-kaaga kaana qarsoonaa. Dhowrkan farsamooyin oo aynu soo gudbinayo waxay ka mid yihiin waxyaalo aanad ku ogeyn WhatsApp-kaaga laakiin aad si joogto ah u isticmaali karto. ugu horeyn intaan cashirka u gelin asxaabta waxaan iga codsan lahaa inaad subscribe noo saartaan, like-tana noo badisaan, channel-kana aad la sii wadaagtaan asxaabtiina kale si ay wax badan uga faa'iidaan. ugu horeyn waxaynu bilaabanaa cashirka. waxaynu dhex tegaynaa WhatsApp-keena. farsamada koowaad waxay noqonaysaa marka aad doonaysid inaad u dirtid qof message-kaas siyaabo badan ayaad ugu qori kartaa. siyaabaha badan waxaa ka mid ah message-kaaga ama fariintaad qoraysid inaad ka dhigtid bold ama tusaale ahaan xarfahan caadiga oo bold ah. bold waxaynu uga jeednaa ka xajmi weyn. waa in message-kaaga aad qoraysid uu qara yeesho ama uu ka xajmi weynaado message-yadii hore aad u qori jirtay. haddaba markaad doonaysid inaad bold ka dhigtid waxaad qoraysaa calaamadda xidigta, kabacdi waxaad qoraysaa message-kii aad doonaysay, haddana waxaad kusoo xidhaysaa calaamadda xidigta ayaad kusoo xidhaysaa. waa ujeedaan bold ayay noqotay, kabacdi sidaas ayaad ugu diraysaa. haddii aad doonaysid sidoo kale tusaale ahaan inaad ka dhigtid italic ama qoraalka yar jiifa, iyagana waxaad qoraysaa calaamadan underscope-ka ee jiifta ayaad qoraysaa, waa minus jiifa. haddana waxaad qoraysaa message-kaaga ayaad qoraysaa, kabacdina waxaad ku sixisiinaysaa haddana isla calaamadii. waa ujeedaan saas ayaad isagana ugu diraysaa. waxaa jira qoraal kale oo underline ah oo hoosta ka xariiqan ama dhexda laga xariiqayo. isna waxaad taabanaysaa calaamadaas ayaad taabanaysaa, kabacdi message-ka aad doonaysa ayaad qoraysaa, haddana isla calaamadda ayaad ku xigsiinaysaa. waa underline ayaa la yidhaahdaa, hoosta ayaa toos looga xariiqay. farsamooyinkaas waxay kaa caawin karaan inuu message-ka aad diraysid uu qurux bato ayuu kaa caawin karaa. ka koowaad aan doonayo waa tabtaa. ka labaad ee aan la wadaagayo asxaabta ama farsamada labaad waxaa ka mid a inaad iska qarisid qofka inuu arko message-kaaga. tusaale ahaan qofkii aan iminka message-ka u qoray waxaan ku garanayaa inuu arkay labada tig ee buluuga ee saaray. haddaba sidee ayaad iskaga qarin kartaa? waxaad tegi kartaa setting-ga ayaad tegaysaa, account ayaad kasii dooranaysaa, haddana waxaad sii dooranaysaa privacy, kabacdi halkaas onta ku ah ayaad ka dhigaysaa off ka dhigaysaa. asxaabta farsamada saddexaad ee aynii wada waxa weeyaan sidee hadduu qofku kuu yiraahdo kale hakaad joogtaa, sidee ayaad ugu soo diri kartaa location-ka aad joogtid, sidee ayaad si yaroo fudud ugu diri kartaa. waxaad taabanaysaa halkan calaamadda ee hoose, kabacdi location ayaad ka dooranaysaa, kabacdi waxaad dhahaysaa send your current location, kabacdi toos ayaa loogu dirayaa location-ka aad joogtid. qofkuna halkaas ayuu ka furayaa, toos ayuu arkayaa halkaad joogtid. asxaabta farsamada kale ee aynii wada waxaa ka mid a sidee ayaad codkaaga aad u bedeli kartaa ama codkaaga cod aan ahayn sidee ayaad ugu hadli kartaa. badanka waxaan ku arkay WhatsApp GB-ga ayaan ku arkay. waxaad ku dhufanaysaa qofka aad joogtid, qofka aad dul taagan tahay ama aad message u dirisid,
ayaad taabanaysaa saddexda dhibcood ee kore. kabacdi waxaad kasii dooranaysaa fuse changer, waxa weeyaan codkayga bedel weeyaan. halkaas markaad kusii dhufatid waxaad ka dooranaysaa tusaale ahaan robot oo kale, waxa weeyaan waa sidii caag oo kale ama robot, farsamooyinkan robotka la yiraahdo codkiisa oo kale, baby oo caruurtii ah, iyo dhammaan codadkaas oo dhan ayaad ku duubaysaa. markaad tusaale ahaan caruurta aad dooratid oo kale ayaad kasoo noqonaysaa. farsamooyinka kale ee ku jira whatsappka laakiin aanad isticmaalin waxaa ka mid a messageyadan laguu soo diray sidee ayaad clear uga dhigi kartaa ama aad iskaga kala garayn kartaa markasta si aanu kaaga buuxin mobilkaaga. isna waxaad ku dhufanaysaa qofka aad doonaysid, markaad dul taagantahay ayaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcooda kore. kabacdi waxaad dooranaysaa more, kabacdi waxaad ka dooranaysaa clear chat, halkaas ayaa ka dooranaysa. farsamooyinka kale ee aanad ku isticmaalin whatsappkaaga waxaa ka mid ah in aad gaar ula soo baxdid qofkan aad doonaysid, ama hadduu qof kuu muhiima yahay inaad gaar ula soo baxdid, kabacdina shaashada mobilkaaga aad soo dhigatid. iyadana waxaad dooranaysaa tusaale ahaan qofkan aan dul taaganahay ayaan doonayaa inaan whatsappkayga gaar ugala soo baxo. waxaad dooranaysaa saddexda dhibcood ee kore ayaad dooranaysaa, kabacdi waxaad kasii dooranaysaa more, kabacdi waxaad kasii dooranaysaa add shortcut, hab shortcut ahaan ayuu samee. kabacdi halkan ayuu kugu tilmaamayaa inta tire aad soo dooratay. kabacdi farta ayaad ku haynaysaa adoo dooranaya halka lagu dhigayo. waa ujeedaan shaashada halkaas ayaad ka dhigan kartaa qofka aad doonaysid. asxaabta qaaliga, farsamooyinka kale ee aan inii wado maanta waxaa ka mid a sidee ayaad message kuu muhiima aada u seef garaysan kartaa oo aanu weligii kaaga lumin. tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan messagekan yar aan seef garaysto ama aan meel dhigto si aan hadhow aan isaga tixraac aan ugu sameeyo. waxaad dul tegaysaa markaad calaamadsid ama aad highlight ka saartid ayaa saddexda dhibcood kale ku dhufanaysaa, kabacdi waxaad taabanaysaa start. iminka messagekaasi messageyada kale wuu iga xafidan yahay, markaan doonayo inaan la soo baxo ama aan eego waxaan intaan kasoo noqdo ayaan ku dhufanayaa saddexda dhibcood kore. kabacdi waxaan dooranayaa started message, itusi messageyada ii star garaysan. kabacdi waa ujeedaan halkaas ayaa laygu xafiday. asxaabta qaaliga, farsamooyinka kale aynii wado maanta ee ku jira whatsappka waxaa ka mid ah sidee ayaad qof uga qarin kartaa statkaaga si aan u eegin. waxaad tegaysaa statkaaga ayaad tegaysaa, kabacdi waxaad ku dhufanaysaa dhibcooyinka sare ama xariiqooyinka hadba sida uu kugu soo saaro. kabacdi waxaad taabanaysaa status preferency, kabacdi waxaad kasii dooranaysaa qeybtan dhexe ee ah my contact accept. kabacdi waa ujeedaan kuwaas waan ka qariyey. waxaad dooranaysaa qofka aad doonaysid inaad ka qarisid, kabacdi waxaad taabanaysaa maxay calaamada saxda ah, haddana dhan ayaad sii taabanaysaa. farsamooyinka kale aan asxaabta qaaliga maanta inii wado waxaa ka mid ah qoraalka aad kusoo qoraysid whatsappkaaga ama statka whatsappkaaga sidee ayaad u qurxin kartaa uguna dhigi kartaa mid habaysan oo soo jiidasho leh. waxaad taabanaysaa markaad doonaysid inaad qoraal qortid, tusaale ahaan waxaynu qoraynaa
intaasoo kale ayaan qoray, magaca channelkeena ayaan qoray. kabacdi waxaan doonayaa inaan sidii hore sidan uu qoraalkani yahay inaan ka qurxiyo. waxaad doonaysaa farta aad doonaysaa ayaad highlight garaysanaysaa. kabacdi waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay monospace. fartu sideedii hore way iska bedeshay. haddii aad doonayso inaad bold ka dhigatid, halkan ayaad italic halkan ayaad ka dooranaysaa. sidoo kale bold ayaad ka dooran kartaa. saas ayaad u qurxin kartaa adigoo featureska ama backgroundka fartaadana halkan ka bedelaya hadba nooc ay tahay. halkana kala soo baxaya stickerska aad doonaysid inaad wax ku cabirtid. stickerska aad doonaysid inaad wax ku cabirtid ayaad halkana kala soo baxaysaa tusaale ahaan. taasina waa farsamada kale ee aan rabay inaan maanta inila wadaago. asxaabta, farsamada kale ee aan rabay inaan inila wadaago maanta ee ku jira whatsappka waxaa ka mid ah sidee ayaad ugu xidhan kartaa fingerprint aad ugu xidhan kartaa, ama passwordka fingerprintga la yiraahdo ama gacantaada sidee ayaad ugu xidhan kartaa whatsappka. waa haddii uu leeyahay mobilkaagu fingerprintga uu leeyahay, waxaad tegaysaa 3 dhibcood kale, waxaad kasii dooranaysaa settings, waxaad ku dhufanaysaa account, haddana waxaad kasii dooranaysaa security, waxaad ku dhufanaysaa maxay privacy. ugu dambeyn waxaad dooranaysaa fingerprint lock. kabacdi halkan disable-ka ayaan enable ka dhigayaa. kabacdi waxaan gelinayaa fartayda ayaan taabsiinayaa. kabacdi waxaan dooranayaa immediately. imika si toos ah ayay ugu xidhan tahay. haddaan ka noqdo, tusaalehaan haddaan ka noqdo markaan farteyda saaro ayuunbuu ka baxayaa. asxaabta qaaliga, farsamooyinkaas oo dhan iyo kuwo kale aan inii soo wadno ayaa whatsappkaaga ku jira. si joogtaana aad u isticmaali kartaa. insha allah way inii soo wadi doonaa wixii farsamooyin kale ee ku jira whatsappka. waxaan iga codsan lahaa inaad subscribe-ta noo saartaan, channelka siina faafisaan. wassalaamu calaykum.